ku faraxsanahay maadaama oo laga dheelayo Soomaaliya basketka ee nabadda noo soo carfayso waan jecelnahay inaan horumar gaarno maadaama qarankana u dheelno wuxuu ka qaadanayaa ishag nabadda oo kale tood dalka waqti dhibaato far badan ka dhacday dhalinyarada meeshaan waxa ku mashquuleynaa intaan meel kale aadayeen hadii basketball ka dhigna ama dhidino wax badan la ilooba dad badan oo saaxiibadeen oo ama sigaar cab ama qor haystan waan soo jiidaneynaa caqabadaha waa iska badan yihiin xilliyo badan aan soo marno xataa la ogolayn inuu dadku ku dheelo xataa surwaal maaragtay gaaban uu ku dheelan la ogolayn xilli la leeyahay cayaar maxay tahay waxa ka fiican jihaadka iyo dagaalka waxa ka fiican leeyahay soo gaarnay waxa soo dhan waa xataa iyadoo saas jirtaan cayaaro ku dhax qabanay iyadoo xataa la ogolayn garoomada inay gabdho soo galaan oo rag kaliya uu soo galo maaragtay la ogolayn يعني بروبلمها soo dhan waa soo aragnay waa soo marnay laakiin hadda wax weyn isbedelay waa gabdha iyo wiilalba garoomada wayna ciyaari karaan wayna gali karaan marka Soomaali hadii la yiraahdo basketball waxay ahayd in Afrika tiimamka ugu fiican ay kamid ahayd I was told it's dangerous. I was told, you know, Al-Shabaab have the areas, you know what I mean? But then I thought fear is the best way to control people, you know? With fear in our minds, the youth and the people that studied abroad, you know what I mean, that ran away from bullets, they won't come back. They won't invest their time back in our country. And if we don't help each other, our country's going to be, you know, bits and pieces. Everybody's going to grab a piece. So it's up to us to do something about it. And this little bit of fear is consuming our mind and it's keeping us away.